إسرائيل ayaa saaka duqeyn xoogan waxay ka fulisay Mareykanka Gaza waxaana warkan ku dhawaaqay militarigeeda iyadoo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hamza ee Gaza ay sheegeen in 12 qof lagu dilay weerarada Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in haween iyo carruur ay ka mid ahaayeen dadka dhintay hase yeeshee may bixinin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan aqoonsiga dhibanayaasha. wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo ku sugan Gaza ayaa arkayay dab ka holcaya dusha sare ee dabaq ka mid ah kuwa ku yaalay magaalada kadib markii duqeymuhu ay haleeleen iyadoo ay baabuurta gurmadka degdega ahi ay daadgureynayeen dhibanayaasha. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen 3 hogaamiye oo ka tirsan Islamic Jihad oo ah koox ay si weyn ula dagaalanto balse ah Falastiiniyiinta difaacaya dhulka Falastiin. bayaan ay soo saareen ayay 3 hogaamiye ee la beegsaday ku sheegeen Jihad Ganaam iyo Khalid al-Bahtani oo lagu beegsaday Mareykanka Gaza iyo Tariq Estini oo lagu weeraray daanta galbeed isagana. Islamic Jihad ayaa xaqiijisay in 3 ka mid ah saraakiisheeda sare la dilay iyadoo bayaan ay soo saartay magacyadooda ku sheegtay 3 hogaamiye ee Israa'iil ay xustay. duqeymaha oo bilaabmay 2 habeenimo ee xalay ayaa socday ilaa 8 subaxnimo ee saaka sida ay sheegeen wartabeyaasha wakaaladda AFP oo ku sugnaa gudaha Gaza iyadoo qaraxyo cusub laga maqlayay dhanka bari ee magaalada. howlgalka ayaa yimid wax ka yar 7 kadib markii Islamic Jihad ay xabad joojin ku dhawaaqday Gaza ka hirgasha taasoo ay dhexdhexaadisay Masar kadib rabshado cusub oo ka dhashay mid ka mid ah hogaamiyeyaasheeda oo ku jiray cunno ka soomid kuna dhintay xabsiyada Israa'iil. Khadar Haybasaab TV. واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa